روح ضد ما جعلاado إلا iyagu la mid noqdo iyaga ayaa iyagoo kala laga dhigaa iyaga la jirankooda la yeelaa taana waa qaacido weyn haddaad isweydiinayso talow aakharo yaad la meel noqon doontaa yaa lagula soo kulmin doonaa yaa lagu raacin doonaa yaad la koox noqon doontaa jawaabteedu waxa weeyaan qalbigaaga dib ugu noqonaysa yaad jeceshahay yaad u hiilisaa yaad la jirtaa yaad garab taagan tahay yaad ka mid tahay adduunyada markaad joogto cidda aad jeceshahood qalbigaaga ka jeceshahay ayaa maalinta qiyaamadana la meel tahay ninkii gaal jecel gaal buu la meel yahay ninkii fujaarta iyo cusaada jecelna ayagu la meel yahay ninkii saalixiintii ahlul iimaanka iyo dadka wanaagsan jecelna ayagu la meel yahay dadka aad jeceshahay baad bari la meel tahay warku waa cadi nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh nin baa u yimid reer baadiye ah acraabi ah markaasaa wuxuu rasuulka ilaahay oo qiyaamadu waa goorma saacaddu waa goorma saacadda kama jawaabi karo waa goorma nabigu kama jawaabi karo salawaatu rabbi wasalaamu calayh walaa malakul jibriil baan ka jawaabi karin waa cilmi ilaahay khaas leeyahay markaasuu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh su'aashiisii wuxuu kaga jawaabay su'aal buu isagii ku celiyey wuxuu yidhi maxaad u diyaarsatay yaa qiyaamadu ama berri ha noqoto ama ha dib dhacdo ama ha soo hormarto way imaani qasab inay imaanaysana shaki kuma jiro goormay imaanaysaa waxaa ka muhiimsan inaad isweydiiso maxaa kuu diyaarsan adiga way imaanay maxaad diyaarsatay markaasuu wuxuu yidhi rasuul ilaahayow salaad badan iyo soom badan iyo sadaqo badan iima diyaarsana laakiin ilaah iyo rasuulkiisaan jecel nabigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kuwaad jeceshahay baad la meel tahay baa layidhi nin kale u yimid nabiga sal alla alay wasalam markaasuu wuxuu ku rasuul ilaahayow ruux baa dad jecel ma se gaadhi karo waa jecelya khayrka iyo wanaag iyo taacada iyo waxay hayaan buu ku jecelya laakiin waxay samaynayaanoo kale ma samayn karo waa ka sokeeyaa ma gaadhi karo markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam almar'u maca man axab ruuxu dadka uu jecel yahay buu la meel yahay warkaasi war cad wey marka adaa garanaya marka meeshaad isgeyn lahay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu la tacaamulayaa aadamaha iyo makhluuqu waxay la mucaamaloonayaan wixii lagugu arko xubnahaaga ka muuqda camalkaaga ka muuqda carabkaaga ka soo baxa ayaa lagugula dhaqmaa khalqigu intaa ka badan ma ogaan karaan laakiin rabbi tabaaraka wa tacaala asagu wuxuu kaala mucaamaloonayaa qalbiga maxaad jeceshahay maxaa qalbigaaga ku jira maxaad rabtaa xaggeed u socotaa maxaad damacsan tahay maxaad go'aansatay allah qalbigu kaala mucaamaloonaya sida nabigeennuba yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaamikum walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum allah tabaaraka wa tacaala qalbigaaga waa inaad tusto inaad isaga jeceshahay waaladiina aamanuu ashaddu xubban lilah inaad rusushiisa jeceshahay inaad nebi maxamed jeceshahay inaad saxaabadiisa iyo akhyaartii ardadiisa ahayd jeceshahay inaad saalixiinta iyo dadka wanaagsan iyo culimmada iyo dadka diinta u adeega jeceshahay inaad dadka saalixiintaa jeceshahay allah qalbigaaga ha ka arko taasaa abaalkaaga iyo meeshaad tegayso noqonaysa kuwaasaa yaa maalinta qiyaamada lagula soo saarayaa iyagaasaad la meel noqonaysaa iyagaasaad meel la tegaysaa haddaad meel kale u leexatana adaa yaqaana meeshaad tegayso howlkuu taallo waay marka nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxu dad ma jeclaado ilaa ilaahay iyaga la jirankoodu yeelaa